sheeko xariira shilin baa dhuustay shilin baa asalaamu calaykum isku soo noqod wanaagsan dadkaygii walaalayaal waa aniga shukriya maanta waxaan nii wadaa sheekadii u horeysay xigmadeedii wixii looga jeeday iyo muhiimadiisii aan u soo qaatay aniguba oo rabay inaan nila qaybsado. haddaba sheekadan maxaa la dhahayay waxaan usoo qaatay inaan ni fahansiiyo muhiimadda ay leedahay af Soomaali waxaan idhaahdaa sumcad. adduunkana waa shay aad u qaaliya inaad sumcadaada ilaaliso amba sumcadda soo wadankaaga familigaaga naftaada. sumcaddu waa shay qaaliya waa inaad ilaaliso weeyaan. haddii sumcaddu kaa lunto amba magac xun kuu baxo amba kaama hadho. kolka haddaba muhiimadan sheekada waxay ahayd haddaa xasuusataan odaygii generaalka maxay ahaydeen ilbaabka ballaqay iska bilaabay inuu iska heeso iska shito faax. haddaba saa hore niguba sheegay sheekada dhexdeeda odayga yin iyo odayga longu way isyaqaaneen labada generaal. 10 jeer ayay dagaal ku kulmeen isdagaaleen. waxaa jirta odaygan haddaba Liong la yidhaahdo loo soo duulumaa tegay ilbaabka ballaqday bilaabay inuu iska heeso faax iska shito raggii kusoo socday saa ula isticmaalay. waxaa loo yaqaanay magaciisa waxaa la odhan jiray wuxuu ku naaneys dheeraa uu ku magac dheeraa masduulaagi hurday baa la odhan jiray odaygaasi. waxaa looga jeedaa odaygan haddaba waxaa loo yaqaanay waxaan inagu u naqaano geesinimo ayaa lagu yaqaanay. waaga waxaa jiri jiray dagaal la yidhaahdo dagaalkii 3 boqortooyo ayuu odaygaasi sumcad uu ku yeeshay in loo bixiyo masduulaagi hurday waa la odhanayay sababtoo ah wuxuu ahaa qof geesinimo dheeraad leh oo lagu yaqaanay. dagaalooyin badan oo uu badiyay baa jira. haddaba odaygan maska duulaaga lagu magacaabo maxay ahaydeen wuxuu lahaa sumcadda ah inuu yahay nin geesiya nin maxaa la dhahaye laga cabsooda ah nin aqli badan oo maskax badan oo maxay ahaydeen dhowr jeer dagaaladiisa oo dhanba maskax ku badiyey siduu u dhigayay strategy uu ku sameynayay ayuu ku magac dheeraa. odaygan ying ee dagaalka soo qaaday 150,000 haystayna wayba sii garanayeen oo 10 jeer bay isla dagaaleen. kolkaas cabsidu halkaasay ka timiday. wixii uu ilbaabkii ballaqnaa iyo odaygii oo iska heesayo oo dharkii traditionalkiisi iska sito oo dhulka tusbaxiisida iska haysto iska jooga oo faax iska shita. kolkuu arkay wuxuuba u maleeyay inay tahay maxay ahaydeen shirqool loo dhigay oo uu ka leeyahay dee kusoo dhaca ayuu mooday. waa sida ahaan wuxuu cabsooday dagaalkii uu soo qaaday buuba u arkayba in shirqool ay tahay. waa sida ahaan wuxuuna u kala celiyey. saad u fahanteenna waa idinka garanaya dee shirqoolba ma ahayn isaguba muu haynba wax askarana muu haysan. dagaalka waa laga badin lahaaba haddii lasoo galo meesha. xikmadii halintaasay ku dhammaatay. waan ka filaa inaad jeclaateen sheekadan iyo xigmadeedii. waa kaasay hayga ilaawina insha allah subscribe abonne like comment wala inta kale waa dhinaciina waan jeclahay. wax yaraan rabay inaan ii sheego oo kale facebook maasha allah asxaab badan aan noqoteen. ballanteenu waa youtube-ka muhiima. youtube-ka layga helaa badanka facebook ma isticmaalo. haddaan muddo ku jiro inta kale waan ka baxaa. sida ahaan halkan aan iskugu imanaynaa insha allah ku sheekeysanaynaa ku baashaalaynaa. haddaa su-aal ii haysaana soo dhiga hoosta
asalaamu calaykum bye bye عالسير شيكو شيكو نو شيكي شيكو حرير شيلين بقى دوستي شيلين بقى دوستي